waa gudaha imaaradda islaamiga ahayd maanta iyaga ayaan ku biiray بسم الله وصار منا waa buurta dusheeda iyo imaaraddii islaamiga ahayd خيركم من تعلم القرآن وعلمه أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. daalibaan waa ayo maxaad ula jeedaa Taliban waayo? In 1994, the war was stalled when a new movement appeared, the Students of Islam, the Taliban. waxaan hadda u soconnaa la kulanka wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta si aan wax badan uga ogaanno mustaqbalka dalkan sugaya dalkan waxaa ku nool 35 milyan oo qof daalibaan luqadda ingiriiska ayay baran jireen marka ay buuraha ku noolaayeen kani waa xamiidullah qisadiisa ayuu nooga sheekaynayaa iyo sidii uu dalkan ugu soo halgamay buuraha ayuu ku noolaa aad ayaan u dadaalaynaa xafiisyada ayaan joognaa bilowgii hore waxba maanan ka garanaynin balse hadda ilaahay mahaddii mujaahidiinta way garanayaan dhammaan qawaaniinta shaqada maalinba maalinta ka dambaysa horumar weyn ayay wadaan marka shacabka afghanistan waxaad ka ballan qaadaysaa mustaqbal wanaagsan mustaqbal wanaagsan insha allah iskuullada waxaan ka dhigi doonaa kuwa ku shaqeeya nidaamka manhajka islaamiga ah markaas gabdhuhu fursad ayay heli doonaan soo maaha insha allah magacaygu waa khayrullah khayr huwa waxaan ka soo jeedaa gobolka kandahaar imaaradii hore waxaan waali ka ahaa heraad markii imaaradii dhacdayna waxaan galay guntanaama bay muddo lagu qiyaaso 13 sano intaa wixii ka dambeeyey waxaan ka mid noqday dadkii ka soo baxsaday xabsiga kadib markii wada hadal isku dhaafsaday maxaabiista intaa kadib isbeddelkii ayaa dhacay halkan ayaan ku soo laabannay waxaana la ii xirsaaray maamulidda wasaaradda dhaqanka iyo warfaafinta iyo arrimaha la xiriira dhallinyarada wax yar may noo sheegi kartaa xilligii aad ku jirtay xabsiga guntanaama bay mar hore ayaan u sheegay miyuusan ahay mid baraarugsan subxaan allah ilaahay dadka markuu abuurayey wuxuu siiyey sifooyin u gaar ah wax walba u adkaa ee ku soo mar muddo kadib waad iloobaysaa taasi waa sifo uu bini'aadamku leeyahay haddii aan waxaas oo dhan iloobi lahayn halkan maanan fadhiyeen mana shaqeeyeen dhammaan dhibaatooyinkii waan iloobay iyo jabdilkii aan halkaagala kulmay ilaahay mahaddii dhammaan waan iloobay balse ilaahay xaggiisa ayaan ajar ka xisaabsanayaan waa wax caqligaaga ka baxsan xabsi ayaan ku jirnay kadibna isdhaafsi maxaabiis ayaan ku soo baxnay intaa waxaa xigay ku soo laabashadii afghanistan arrimahan ma ahan waxay dadku suuraysan karaan khiyaal ayay u haystaan balse annagu waxaan hubnaa inay ahayd gargaarkii alleh subxaanahu wa tacaala wax kale nolooma xirin keliya waxaa naloo xiray inaan dadkeenna u adeeganay sidaas darteed ma jirin wax nagula eedeeyo waan isla fadhiisannay iyaga waxay yidhaahdeen idinka ayaan idinka baqaynaa haddii aad soo ifbaxdaan waad naga soo horjeesanaysaan ugu dambayn isdaafsigii ayaa dhacay xabsigiina waan ka soo baxnay maxaad dareentay guushii kadib عند النصر laba kuma soo dhicin maskaxdeena iyo tan cadowgaba inaan sidan oo kale u soo laaban doona markuu bilowday jihaadkii aan ku qaadnay maraykanka iyo neto dadku waxay yidhaahdeen kuwani miyay waalan yihiin buuraha iyo qoryiila saaran yihiin maraykankuna wuxuu arki karaa cirbadda dhulka taalla sidaa ay arikan ku awoodeen taasi waxay ahayd guul ka timid ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa wuxuu tusay inaysan isku mid ahayn siday u fikirayaan iyo siday guushu noqon doonto inta badan guusha ay muslimiintu guulaystaan waxay timaadaa xilli aan la qiyaasi karin badanaa waxay fiireen awooduhu ma ahan kuwa siman haddii ay sinaan lahaayeen khalaas iyaga ayaa awoodi lahaan lahaa waa inay ku cibro qaataan inay guusha ilaahay xaggiisa ka timaado gacantana ugu jirto rabbi هذا من ايش؟ يس ماين متفجرات جانج كي أمريكان؟ يكورة كذا مع امريكا طبعا هم حاربوا عشان كذا يقول لك اصيب في رجله ka hor buuraha haddana xukunkii aad gacanta ku haysaan waxaan oo dhan waa abaalmarin uu ilaahay subxaanahu wa tacaalana siiyey sidaan hore kugu sheegay ma jiran cid filaysay arrinkan iyaga ayaa tababariyay ciidanka booliska sirdoonka balaayin dollar way kaga baxday arrinkan balse iyagu halkan kuma harin hal koox baa allah ka dhigay kulligood way tageen dhulkiina waa lala wareegay وناس مسكوا مكانهم الآخرون
أربعة ما في أمثال، أنت سويت 3 كتاب لغة الإعلام. sidaad og tihiinba waxay ku bixiyeen wax walbay awoodeen waraha bulshada iyo iclaamka si ay u soo xumeeyaan Afghanistan. Alla mahadii hadda ammaanku uu sugan yahay 44 sano ka hor ma jirin dowlad dhexe. Mar walba mushkilad ayaa ka jirtay, balse hadda bariga, galbeedka, koonfur iyo waqooyiba dhammaan wadooyinka way furan yihiin. Ma jirto cid ku weydiinaysa qabiilka aad tahay, gobolka aad ka soo jeedo iyo halka aad u socotaba. Hadda waynu hormarnay marka la fiiriyo dhanka arrimaha dhaqaalaha, amniga iyo maamulkaba. Dal walba waxaa la dhisi karaa markuu ammaan ka jiro. Haddii uusan ammaan jirin, wax walba halis ayay ku jiraan. Kuma lihi wax walba way inoo dhammaystiran yihiin. Shaqooyin badan ayaa inoo yaalla. Waa khasab inaan shaqayno waan dadaal la imaano. نحن لازم نشتغل ونجتهد. cid walba way imaan kartaa haddii uu rabo Maraykan iyo NATO heshiisa kula jiro. Haddii ay dalxiis u yimaadaan, wax u diidaya ma jiraan. Cid wax su'aalisana ma jirto. marka qofkii raba wuu soo booqan karaa Afghanistan soo maaha. Haa, Rag iyo dumarba wax dhib kuma jiraan soo maaha. haa cid walba way imaan kartaa. magacaygu waa Ruuxullah Cumar, mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga. Markii aan ku soo dhowaanay caasimadda Afghanistan ee Kaabul, madaxweynihii hore Ashraf Ghani wuu baxsaday, xukuumaddiina wuu ka tegey iyadoo uu bilaa hogaamiye ah. Ilaahay mahadii Kaabul ayaan soo galnay, amniga ayaan sugnay, balse ciidanka Maraykanka eelboorka ayay joogeen iyaga oo go'doonsan. Waxaan galnay annaga iyo iyagaba heshiis ka turjumaya xabad joojin inta ay ka baxayaan Afghanistan. Sidaas awgeed ka muslimiin ahaan waxaan joogteynay heshiiskaas iyadoo taasi ay jirto. Waxay ku jireen goodan ay goodoomiyeen dagaalyahanadeenna. Intaa kadib xukuumaddii ayaa la aasaasay innaga oo ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga. waxaan awoodnay tababaridda ciidan xooggan. Hadda dhammaan ammaanka xuduudaha Afghanistan gacanta ayaan ku haynaa, maana la helayo goob ka baxsan maamulka imaaradan islaamiga ah. Hadda ciidankeenna waxaa lagu magacdiray magac cusub kaasoo ah ciidanka qaranka islaamiga ah. Islaamka ayaa horeeya kadibna dalka ay ku nool yihiin muslimiintu. الإسلام الوطني الأول هو الإسلام وثم الوطن الذي يعيش فيه المسلمين. Markaad Kaabul soo gelayseen, waxaa jira ciidan halkaybay ku qarsoomeen hadda. Mana ciidankii hore Afghanistan kuwaas amiirka ayaa cafiyey dambiyadii hore ay ugu galeen, sidii dilka iyo barakicinta ay dadka ka barakiciyeen guryahooda. Hadda sidii shacabkoo kale ayay u nool yihiin, hubkiina way ka tageen. هم تركوا أسلحتهم واستسلموا. Wixii ka dambeeyey 2001 buuraha ayaad ku nooleedeen, noloshu sideebay ahayd? Sideese u sabarteen wakhtiga intaas le'eg ee 20 sano ah? Waa loolan ka dhexeeyey ciidan mootooyin wata iyo ciidanka ugu awoodda badan caalamka ee Maraykanka iyo NATO. Ereyga gumaysi micnihiisu waa ciidankii u yimid inay wax gumaystaan. Waa khasab inay baxaan hadday doonto ha qaadato 20 sano. Ka Afghanistan ahaan tani waa waxaan khibrad u lahayn. Ciidankii Ingiriiska ayaa yimid, way baxeen. Sofiyeetkii ayaa xigay, iyaguna way baxeen. kadibna waxaa inoo yimid reer galbeedkii oo dhan, iyaguna way baxeen. qof walba oo Afghanistan ah wuxuu jecel yahay shucuubta Carbeed iyo dowladahooda. intii lagu guda jiray 20kii sano, askar walba ha ahaado mid Amerikaan ah iyo mid kaloo meel kale ka socdaba way baqayeen, iyagoo ka baqaya in meesha lagu soo galo oo lagu dilo. taasi waxay saamaysay dimiirkooda. sidaas awgeed haddii aad u fiirsato warar saxaafadeedka, waxaad arki doontaa dhammaan ciidankii Afghanistan ka baxay waxay leel daran yihiin xaalad nafsi ah. meelihii ay ka deganaayeen caasimadda Afghanistan waxay ka dhisteen godad si ay markii xaaladdu ku adkaato ay ugu dhuuntaan. dadka Afghanistan waxay ku soocan yihiin qiimaynta madaxbannaanidooda. sidaas awgeed ayada darteed way u dagaalamayaan wax walbaa ku qaadatee. As known in history as the graveyard of empires. The school about the ladies and there is no school for girls. marka hore dhammaan manaahijta meeshan ka jiray waxaa saameeyey shisheeye. waqti xaadirkan iskuullada iyo jaamacadaha si ku meel gaar ah ayaa shaqada loogu joojiyey. dhibaatooyinka Afghanistan ka dhacay awgeed waxaynu ku dadaalaynaa sidii aan ku xalin lahayn. Temporarily due to a range of issues within Afghanistan and we're working on it. Afghanistan. Hadda waxaynu aadi doonaa dugsiga ardayda ee halkan joogta. Waxay doonayaan inay beddelaan manhajka. sababtaas awgeed ma jiraan dugsiyo ay dhigtaan gabdhuhu. manhajkii halkan laga adeegsan jiray 20kii sano ee ugu dambeysay
wuxuu ahaa mid uu Maraykanku dejiyey. Marka hadda gabdhuhu waxaa ka mamnuuca dhigashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha waa mamnuuc lama ogolo. شيخ القرآن والحديث الشيخ شهاب الدين دلاور علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Hadda xufaadda ayaa la soo dhoweynayaa waana la abaalmarin doonaa. Kuwani ma ahan kuwa jaamacad ka baxay. Tan waa marxaladdii dugsiga sare. Masjidkan ayuu ku dhex yaallaa dugsiga. Cimriga masjidkan wuxuu jiraa 400 oo sano. Xufaaddu waxay u qalin jebinayaan sidii xalfadii sanadlaha oo kale. Kadib waxay ka shaqayn karaan shaqada walba ay rabaan ee dowladda. Daalibaan xitaa way ku biiri karaan balse waa inay dugsiga sare ka qalin jebiyaan. maanta waxaan ku sugannahay jaamacadda qaasimiya ee Kaabul. maanta jaamacadda waxaan u joognaa xalfad qalin jebin ah taasoo loo qabanayay 17 shakhsi oo xufaad ah. Imaamad ayaa madaxa loogu duubayaa. Mar walba ay wadaad soo ag maraan imaamad ayaa madaxa loogu duubayaa. Kulligood ma shawaayikh iyo culumaa. haa kulligood waa shawaayikh iyo culumo iyo barofesoro. Marka xalfaddu markay dhammaato waxay qaadanayaan shahaadadooda iyo abaalmarintooda soo maaha. haa maxaa yeelay tan waxay ka dhigan tahay inuu qofku xifdiyo qur'aanka oo dhan ilaa ay dhammaad. كاملا من الأول إلى الآخر. marka aduu quraanka ma xifdisay. haa ilaahay mahadii waan xifdiyey. waxaan sidoo kale dhameeyey culumta diiniga ahayd. وضعتها في مكاني. أنا أخذت شرف تكريم حفظ القرآن. نعم ربطت على رأسك تكريما لك. xitaa hogaamiyaashii imaaradan islaamiga ee Afghanistan tan ayay xiran yihiin. هذه عمامتك. بس هذه عمامي وهذه لك. انظر القائد يعطيني عمامة. هذا ضيفنا كريم حبيبنا كريم. أصبحت من قادة الطالبان. قد ربطت على رأسه العمامة. ماء السماء وماء النهر وماء الذاب من الثلج. ماء الجنة. هل أنت من الخريجين؟ نعم. لقد تخرجت؟ أنا من أفغانستان. كابول. كابول. أنا من كندهار. ما شاء الله. Thank you so much. Thank you. السلام عليكم. Thank you.